بسم الله الرحمن الرحيم. halkan waxa jiifan weyn odaya waxa ku dhacay istaroonkaasi wuxuu hayay muddo 8 sanadood ah. wuxuu leeyahay oo kale oo yeeshay xanuuno aad iyo aad u khatar ah, macaan, dhiikar, beersubagow, xanuuno badan buu yeeshay. wax uu haystaana ma jiro, dad iyo duyo toona. wuxuu yaalaa meel guryaha yaryar dawladda meel ah buu yaalaa. marka muslimka ugu deeqayo waxa ugu deeqay inanka Cabdi Cawil baa ugu deeqay. marka halkaas uu jiifaa u kireeyay oo uga ka bixiyay mushaharkiisa ka bixiyay. marka dadka islaamka ah waxaan u sheegaynaa inuu yahay nin xanuunsanaya, aad iyo aad u jilicsan, aad iyo aad u tabaalaysan, buka aan maxaan idhaahdaaye wax adduun aan haysan, wax dhakhtar lagu geeyo iyo wax caafimaadkiisa lagu eego midna aan haysanin. uu yahay nin aad iyo aad u jilicsan, dad iyo dunya toona aanu haysanin. ummadda islaamka ee gargaarka ummadda u bixisa sadaqadista waxeeda Ilaahay siiyay waxaan u weydiinaynaa inay soo caawiyaan meel kasto ay joogaan, ilka raxmadeed ay ku eegaan oo ay soo caawiyaan wixii way u heli karaan qof walba uu siiyo. saasaanu maxaan idhaahdayaan Ilaahay uga rajaynaynaa. walaashii baa haysa oo gacanta ku haysa, ayaduna waxba ma hayso, way la daala dhacaysaa. wax adduun oo ay haysataana ma jiro. walaaladiina waa dhamaadeen oo geeri baa dhamaysay. marka waxaanu u weydiinaynaa dadka muxsiniinta ah ee ummadda siiye ee wax haysta Ilaahay wax siiyay, cid kastaba ha noqotee ee Soomaalida ah inay ninka hoos u eegaan oo u gargaaraan. ninka facaad loo siin lahaa ee lagu geyn lahaa dhakhtar ee lagu eegi lahaa caafimaadkiisa. waa xanuuno halis ah, waa xanuuno aan maxaan idhaahdaaye Ilaahay oo qaada mooyaane aan wax bini aadan ah ka qaadi karaya aanu jirin. laakiin maxaan idhaahdaaye kaalmo hadii lagu waxeeyo uu qaadan karo intii Ilaahay noloshiisa ugu tala galay. marka sidaasaanu ummadda u weydiinaynaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدا هويدو يدين sheegtay ninkan waa nin muddo 8 sano jiifay oo tabaalaysan. ninkan odayga ah waxa isku biirsay xanuuno badan, waa nin aan dad iyo dunya midna meesha ku hayn. sida hooyadu inoo sheegtay waxaan ummadda islaamka, ummadda Soomaaliyeed, dadka muxsiniinta ah ka codsanaynaa cid walba cidii wax tari karta inay u gargaarto ninka odayga ah wixii awoodooda ah. sidaasaan ummadda islaamka u sheegaynaa. arrinkiisa waa ninka halkaa jiifacdada tabaalaysan. waxaan leeyahay gurmad degdeg ah loo soo fidiyo idamka Ilaahay. ummadda Soomaaliyeed iyo muxsiniinta markay gaadhina waxaan rajaynayaa inay wax ka soo qaban doonaan idamka Ilaahay, oo ay u dhaganagulaan doonaan, oo ay sadaqadoodii la soo bixi doonaan insha Allah ta'ala. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaan idiin sheegayaa dariskaanu nahay, dadka la dariska baanu nahay. arrimaha la sheegayo dhami waa dhab, wax been kuma jiraan. aad iyo aad ninkaas u xanuunsanayaa, cidna ma haysto, walaashiisa la dhacdhacaysa mooyaane cid ma haysto. khutur daruuriga xitaa ku yar, caafimaadkiisu waa barakaysan yahay, kicitaankiisa waa la kiciyaa. wax allaale wax ka soo noqonaya ma jiro. sidaa walaalaha iyagii horeba ay idinku sheegeen ayaa anaguna idinku sheegaynaa. waana dhab. aadna ma laha, cid wax siisa ma laha, oori ma laha, guri ma laha, hanti ma laha, xoolo ma laha, noola ah. marka sidaasaanu idiin sheegaynaa anaguna walaalayaal. marka waxaan doonaynaa soo caawisaan, gacan qabataan, idinkana Allah idin caawiyo. inankan xanuunsanaya waa walaalkay. saxaafadda waxaan u gudbinayaa muddo dheer oo 8 sano ayaan gacanta ku hayay. xanuunsanayaa, aad u xanuunsanayaa. waxa ku dhacay faalig. markii hore dhaawacyo 7 ka soo gaadhay baa ku dhacay, uu ka bogsaday. ka bacdi ilaa muddo 8 sano ayaa waxa ku dhacay cudurro rabaaniya, faalig, subagow, beersubagow, macaan, dhiikar, waxyaabahaas aad ugu dhacay. raggiisiina wuu madhay. dagaaladii hore wadanka soo jiiray ayay ku dhamaadeen. marka dagaaladaas isagii uun baa ka soo hadhay iyo inan kale. kii kalena caaradii baa cuntay. caarada galbeed bay caara ku cuntay. isagoo danguud askari ah. marka inankii kalena
haddaa la soo sidaa isagana laba igu noqdeen markaa dhibaatadooduna in dooray haysatay inankaa kale 10 sano ay cunsanayd inankana 8 sano jiifay dhibaatada aad iyo aad iigu rafatay dadna inan baan leeyahay garab la'aan inankaasi 8 inan buu la dhashay 8 labadaa nin ee ninka caarada cuntay iyo ninkaasi kaga nool yihiin labadaasi diiq bay ku nool yihiin dee markaa hawshii way igu labaatay laba nin bay igu noqdeen labadii imanka marka mid la keeno halkaa la soo wada dhigo qof dumar oo kaligeeda baana awood ilaahay baa leh awlaadna ma hayo isagii waa goblan oori male guri male hanti male xataa dhulka nusbalood kuma laha saxaafadda waxaan u gudbinayaa waxaan ummadda ilaahay u gudbinayaa inay dadka hoos eegaan inay hawshooda dee bal wuxuun hanti xitaa aan ku hayo guryaha kharaabada dawladda ugu inan baa siiyey dawladda kamida uu garab taagan yahay Cabdi Cawil waa loogu nasaseer ba xaafadda ugu samaysay xaafadii waa kuwani garab taagan ragii madaxda ahaa waa kuwani garab taagan ee xaafadda sidaasana arinta idinku soo gudbiyay anigu xataa hanti malihi walaalaha islaamka waxaan ka codsanayaa ummadda Nabi Maxamed walaalaha islaamka Soomaaliya oo dhan inay nimankaasi halka ninkaasi waliba bil khusuusan aan soo gudbiyay kii kalena aan soo garab dhigayo waxba aanan haysan aan ahay qof dumar oo dadka aad iyo aad ugu jilicsan ah marka aniguna inanka yaraan leeyahay xitaa waa arday kaligay baa la rafanaya dhibaatadu way ugu badatay ilaahay baa loola cawdaa insha Allah bilmillaahi kariim 8 sanadood waa la baabaayay kali baan ku noqday qof hay mooyaane cid igu labaysaa ma jirto inanka yare wax dhigtaana dee wuu iga fog yahay waxbarasho isagu naftiisii ula cararay arintaa waan soo gudbiyay walaalahayga islaamka baan soo gudbiyay ilaahay baan banaanka ugu yaalaa xaaladda jilicsan ee maxay ahayd dhibaatada ah waan soo gudbarka wax loogu soo hagaajinayo bismillah waxa weeyaan 497 93 lambarkiisu waa kaasaadna wuu leeyahay waxaa soo baxaya Saciid Jaamac Yuusuf 497 lambarkiisu waa kaasaadna wuu leeyahay kayguna waa 423 5762 markaa lambarkaygiina labada lambar ayaa kala soo xidhiidhaysaan walaalayaal